labaatanki abril waxaa loo aqoonsaday inay noqoto maalinta dhakhaatiirta xoolaha dhammaan dhakhaatiirta iyo howlwadeennada wasaaradda waxaan leeyahay hambaliyo maanta oo kale waxaa maalintaa loogu aqoonsaday inay noqoto maalinta dhakhaatiirta xoolaha ee mudnaanta intaa leeg loo siiyey waxaad ogaanaysaan inay xooluhu yihiin shayga ugu muhiimsan ee bini aadan dhaqdo sidaa daraaddeed dhakhaatiirta xooluhuna waxa weeyaan ahmiyad gaara ayaa la siiyey maadaama lagu xusay maalinta iyada ah haddaba maxaa ahmiyadda intaa leeg loo siiyey baa la isweydiinaya loo siin waayey dhakhaatiirta dadka ninka dhakhtarka dadku markuu bini aadanku xanuunsado ama qofku xanuunsado magaaladu ugu yimaadaa laakiin dhakhtarka xooluhu wuxuu ugu tagaa xooluhu halkay joogaanna waynu naqaanaa halka lagu dhaqana waynu naqaanaa dadka dhaqana waynu naqaanaa waa miyi iyo qarfe iyo meel adag markaa ninkan dhakhtarka xooluhu intuu kidkiisa qaato ayuu ugu tagaa halkaasoo xooluhu ku daweeyaa ku caafimaadiyaa ku dhaxaa ku dib jira sidaasaa ninka dhakhtarkaa ee xoolaha loo siiyey ahmiyadda halkan axmed xaashaan wuxuu la isuna xoolaha dhaqeen digaaggiina uu ka sheekeeyey si wanaagsan digaagga uga sheekeeyey kolley waxaad u malaysaa dadka digaaga dhaqaa ninaanu saaxiibnahay bay ugu yimi wasaaradda gidaarka wasaaradda waxaa ku sawiran xoolihii digaaggii wixii baa ku sawiran wuxuu ugu yidhi oo digaagguna xoolaha ma ku jiraan marka waxaad u malaysaa dadka digaaga dhaqdaa in aanay u haysan wasaaradda xanaanada xooluhu dhakhaatiirta xooluhu inaanay digaaggana daweyn way daweeyaan badanaa markay wasaaradda yimaadaanna waxay noogu yimaadaan iyagoo oo cudurkii galay digaaggii ayay noo yimaadaan waxna laga qaban kari maayo sida axmed xaashi sheegay ama ay sucaal sheegtayba waa ka hortag digaagga caafimaadkoodu in laga hortago ay noogu yimaadaan wasaaraddii ay yidhaahdaan war dee xanuunadaasaa jireen si looga hortago kaalaya dhakhaatiirna raaciya waanu raacinayna xagga xoolaha runtii xooluhu waa lafdhabarka dalka waynu ognahay waa waxaynu ku noolnahay cad iyo caano iyo harag waa waxa keliya hataynu ku helo lacagta adag waxa weeyaan inaynu daryeelno oo caafimaadkooda iyo ilaalintooda iyo ka warhayntoodaba aynu ilaashano waxaad u malaysaa xoolaha in lagaga yimi oday iyo islaan lagaga yimi dadkii dhallinyarada ahaa ee xoolaha dhaqayay inay ka yimaadeen oo ay magaaladii yimaadeen sidaa daraaddeed xoolihii way dayacmeen xoolihii oday iyo islaan baa lagaga yimi wax daryeelaa ma jiro annagu ka wasaarad ahaan sanadkii dhowr kaambeyn baanu qaadnaa kaambeynadaa waanu shaacinaa oo kuwa ay hay-aduhuna nagala qayb galaan laakiin mar walba degmo wal oo ku taalla dalka ama gobol wal oo dalka ku yaalla waxa ku yaalla xanaanadii xoolaha dhakhaatiirtii baa jooga dawadiina way taallaa dhakhtarka marka rugta ama degmada loogu yimaado dhakhaatiirtu way raacdaa way la soo eegtaa marka wasaaradda xanaanada xooluhu mar walba waxay heegan u tahay diyaarna u tahay caafimaad qabka xoolaheeda waayo xooluhu saad ka warqabtaan waa lafdhabarka dalka wax kale oo aynu haynaa ma jirto inaga baadhoolkeenu waa xoolaha waa neefkeennaa xoolaha haddii aynu ilaashan weyno oo waxaan u malaynayaa beriga hore soomaalida waxaan ku tirin jiray geela iyo adhiga marka la yidhaahdo dadka ugu xoolaha badan adduunka maanta garan maayo waxay noqon doonto waayo xoolihii siyaabo badan bay uga baxayaan ay u baaba'ayaan waa mid abaarihii oo joogto noqday waa ta labaad dadkii dhaqayay oo magaaladii soo galay waa ta saddexaad xoolihii oo laga wada ooto seerayaal laga samaystay oo nin walba intuu seeras ka samaystay yidhi cawska ka ganacso ee aan walba bal xoolo ku dhaqo dhulkii oo degaankii baaba loo diiday xoolihii waa ta kale wax degaankii baa la xaalufiyey markaa xoolo sidan inoogu dhaqmi maayaan baanu malaynayaa xooluhu inaynu ilaashanno oo aynu daryeelno dee waxa weeye waxa keliya inaynu hanti leenahay waa iyaga wax
kala ma hayno wixii dhulka hoostiisa ku jireen dawladdu weynaan teginba markaa waxaynu ku soo badbaadnay aynu inta badan ku soo maray ee xataa halgamadii kala duwanaa ee SNM iyo ay soo galeen ay ku success garoobeen waa xoolaheena neefka xoolaha baa cid walba ama hayibsata ama cunta ama qalatay ayuun baa lagu soo dalkan lagu xoreeyay markaa waxaan leeyahay ka wasaaradahan anagu waanu soo jeednaa xoolaha waanu daryeelaa caafimaadkoodana aad baanu ilaalinaa badqabkoodana waanu ka warhaynaa kuwa dhoofayana iyagaba warkooda badaayo waxay maraan borsas dheer oo caafimaadkooda lagu ilaaliyo